kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay sidii wasaaradda iyo culimada ay u yeelan lahaayeen iskaashi isla markaana ay u sameyn lahaayeen guddi ka shaqeeya wacyigelinta bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. waxaana kulanka inta uu socday culimadii ka qayb gashay ay soo dhaweeyeen dadaalka ay wado wasaaradda ee la doonayo in lagu wacyigeliyo bulshada ku dhaqan saddexda gobol ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. waxaana kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo sheegay in kulankan uu ahaa mid muhiim u ahaa dhammaanba wasaaradda iyo culimada ku dhaqan dowlad goboleedkaasi Jubbaland, isagoona tilmaamay in ay magacaabayaan guddi ka shaqeeya sidii wacyigelin buuxda loogu sameyn lahaa bulshada ku dhaqan dowlad goboleedkaasi Jubbaland. runtii noo suurtageliyay kulankan qiimaha iyo qaayaha badan oo isugu nimaadnay bahda arrimaha diinta wasaaradda iyo culimada diinka taariikhdu ay maanta tahay 23 bishii 3aad 2022 waxaana ka mid ah kulamadan shaqooyinkii ee barnaamijka wasaaradda waday oo culimada iyo wasaaradda isla wadeen runtii ayagoo iskaashanaya barnaamijkaas oo ahay horumarinta arrimaha diinta wacyigelinta bulshada laga wacyigeliyo xumaanta wanaagna la faro guddiga jira wasaaradda ay qaban qaabinayso wali insha Allah diyaarinayso oo ay ugu talagashay barnaamijkaas si fiican oo saak shirkeena nooga bilaabay noogana dhamaaday qodobada aan ka wada hadlaynay wacyigelintaas guud in la xoojiyo iyo wada shaqeynta culimada diinka iyo wasaaradda iyo sidoo kale bulshada in qayb wax laga qaato horumarintooda ama u sheegooda wanaaga xumaantana laga nahiyo in la howlgeliyo guddigaas runtii baahi weyn u taala isla qaatay kulamo badan hore aan soo galnay lagana shaqeysay guddigaas sidoo kale waxaa shirkan la tilmaamay inay jirto abaar aad u baahsan oo muddo badan socotay sida daraaddeed ilaahay aan ku cararno meeshii runtii dadka loo bilaadan ama hay'adii inta badan dadka qaltaageen sax ahayn sax tahay in ilaahay ku cararno annagoo u marayna siiqada ugu haboon oo ilaahay lagu baryo in la roob doono iyadoo dadku is cafinayaan la sameeyo oo maxay loo marayo dariiqda saxda ah ilaahay la baryo la roob doono si looga baxo abaartan runtii daba dheeraatay in la hormariyo barashada arrimaha diinta islaamka inaan horumarino si balaayada iyo dhibaatada iyo abaarahan iyo wax badan oo bilaadanka gacmeena ku kaysanayaan si ilaahay nooga cafiyo. Cumar Guxurbaynta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.